Abiy Ahmed, ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa ku sugan furimaha dagaalka ee Cafarta iyo Amxaarada, halkaas oo isku wajahayaan ciidamada TPLF iyo ciidamada dowladda federaalka Itoobiya iyo sidoo kale weliba kuwa maamulada Cafarta iyo Amxaarada iskarabsanaya iyo jamhadda TPLF. Wasaaradda warfaafinta dowladda Itoobiya ayaa faafisay in dowladda Itoobiya ay guul ka gaareen deegaanada Amxaarada iyo Cafarta. Muuqaalada isdaba joogga ee laga soo tabinayo isla markaana laga soo gudbinayo goobaha dagaalku ka socdo ayaa la arkaya ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo ciidamadiisa dhiriga mararka qaarna ciidamada ugu horeeya oo tilmaamaya kiiloomitirada iyo masaafada cadowgu u jiro. Deegaano badan oo ka tirsan dhulka Cafarta ayaa Abiy Ahmed tan iyo isbuucii tagay markuu tagay jiidda hore dagaalka laga xoreeyay TPLF. Deegaanada loo yaqaan Shawa, Jufra iyo sidoo kale weliba deegaanada kale ay ka mid tahay Bata, Gabra iyo sidoo kale deegaanka Shana ayaa laga xoreeyay ciidamada TPLF oo ay hore gacanta ugu dhigeen. Abiy Ahmed ayaa sheegay inay guulo horudhaca oo dagaalkaasi ka gaadheen. TPLF ayaa isku dayeysay deegaan muhiim ah oo ay marto wadada xiriirisa Djibouti iyo sidoo kale Itoobiya ay qabsadaan, hase yeeshee waxay kala kulmeen iska caabin xoog leh. TPLF ay kala kulantay ciidamada dowladda federaalka ee ku sugnaa deegaanka Cafarta iyo kuwa ismaamulka Cafarta iyo maleeshiyaad beeleedyo iyagu is abaabulay ay mari waayeen deegaankan ay qabsan waayeen. Abiy Ahmed ayaa xoogga saarayay siduu deegaanka Mila iga fogeyn lahaa TPLF iyo weliba deegaanada kale ay gacanta ku dhigana uga saari lahaa. Jufra waxay ahayd magaalo muhiim ah, hase yeeshee TPLF gacanteeda way ka baxday wayna ku guuldareysteen inay TPLF deegaanka sii joogaan. Deegaanka Labela oo ah deegaan muhiim ah isla markaana ay ku yaaliin kaniisado isla markaana qaramada midoobay hore ugu aqoonsatay goobeed taariikhi ah isla markaana TPLF ay hore u qabsadeen. Sidoo kale deegaanada Kombolcha, Diza oo ah deegaanadan oo dhammaan ka tirsan deegaanada Amxaarada ayaa shalay ciidamada dowladda federaalka Itoobiya iyo kuwa maamulada Cafarta Amxaarada oo iskaashanaya ay la wareegeen. Maxay ka dhigan tahay guusha horudhaca ee Abiy Ahmed uu gaadhay? Dadka falanqeeya inta badan arrimaha dagaalka Itoobiya ka socda ayaa sheegay in deegaanka loo yaqaan Komocho uu ahaa deegaanka ay iskaga soo dhawaadeen labada jamhadood, kuwa OLF ee deegaanka Oromiya iyo sidoo kale weliba jamhadda Tigray, halkaas oo ay hore ugu heshiiyeen. Waana deegaanka kaliya ee xiriirinayay, waana goobahan Komocho ay ka mid tahay waa deegaanada ay labada jamhadood ay ka midoobi lahaayeen cududooda ay doonayeen inay ku qabsadaan caasimadana ay xilligan ku midaynayeen. Hase yeeshee deegaanadan oo dhan ayaa la sheegay haddii la qabsado inay TPLF iyo OLF ay cududoodii ay fashil uu qarka u saaran yahay isla markaana isku daygaasi dhammaanba u fashilmayo. Dagaalka Itoobiya ka socda muddada sanadka iyo barhka ayaa hadda dowladda federaalka oo hore looga adkaaday deegaano badan laga qabsaday ay xilligan sheegtay inay guulo ka gaadheen. Getachew Reda waa afhayeenka TPLF. Wakaaladaha reer galbeedka qaybo ka mid ah dhanka wararka ayaa sheegay inuu telefoonka habeenkii xalay ka qaban waayay si ay wax uga weydiiyaan guulaha iyo guuldarrooyinka la sheegay inay TPLF ku dhaceen iyo guulaha ay gaadheen ciidamada dowladda Itoobiya. Abiy Ahmed ayaa jiidda hore ee dagaalada ku sugan isagoona sheegay inay cadowga ka sifaynayaan dhammaan deegaanada. Hase yeeshee dagaalkan muddada iyo sanadka iyo barhka socday ayaa lagu kala adkaan iyadoo marba qolo la riixayo isla markaana TPLF markii hore gobolka Maqale iyo deegaanadaas lagaga adkaaday, haddana ciidamada dowladda dib loo soo riixay oo deegaano badan oo Amxaarada iyo Cafarta ka mid ah laga qabsaday. Hase yeeshee Abiy Ahmed ayaa hadda tuutaha u xidhay isla markaana qoriga digta u sudhay siduu TPLF u ciribtiri lahaa ama awoodeeda iyo xawaaraheeda uu hoos u dhigi lahaa.